بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا يا رب العالمين. اللهم انني نسألك العفو والعافية يا رب العالمين. الحقيقة waxaan aad u soo dhaweynayaa hadalkii ka soo yeelay guddoonka golaha shacabka oo ahaa meel doorasho dadban lagu saxeexay ma jirto. waxaan kale oo aan rumaysnahay in baarlamaanku uu hindisa sharciyeedkii executive powerku soo gudbiyey intuu laalay uu mid kale meel walba la soo maray oo keenay golaha shacabka ansixiyey, golaha aqalka sare ansixiyey, madaxweynaha saxeexay. ninkii intaa diidanow macnaheedu waxa weeye dawladi ma jirto. wixii uu ansixiyo golaha shacabku waa sharci, wixii madaxweynuhu uu saxeexana dee waa sharci, waa kama dambayn, waa finaal. war ninkii intaa igu haystow soo fadhiiso miidiya, qodobkaa intaasaan ku dhaafaya. doorasho dadban waa soo aragnay, haddana waa soo aragnay. 2016 baad ku heshiinay in la aado one man one vote. haddii uu hadda rag la xumaaday xildhibaanna ah ama qaar ka mida maamul goboleedyada dee iyagay jirtaan. waxaan soo qaadanayaa puntland. miyaanu cabdiweli cali gaas ahayn kii yidhi dib loogu noqon maayo? miyaanu ahayn ninka la yidhaahdo siciidini? miyaanu ahayn ma maantay la xumaatay? haddii mustaqbalka dalka iyo rabitaanka ummadda la geliyo maxaa ii dana? waroy hadda waa burbur weeyaan. taasina ummadda dan uguma jirto. shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay u istaaga hadalkii ka soo yeedhay golaha baarlamaanka maanta. isu taaga wixii ay labada gole saxeexeen. isu taaga wixii madaxweynuhu saxeexay oo ahaa in la aado doorasho xilligeedii ah oo hal qof iyo hal cod ah. waxa looga baqayaa waa maxay? ninka dimuqraadiyadda ka baqaa waa dictator, waa fulay weeyaan. dictatorku waa fulay. maxaa looga baqayaa dimuqraadiyadda? inaan codeeyaan rabaa, in la ii codeeyaan rabaa. sidaas ayay dimuqraadiyaddu tilmaamaysaa. waa in muwaadinku codeeyaa, loona codeeyaa. wax doortaa, la doorto. kuwa intaa ka baqayow ka baxa siyaasadda. waa fulaynimo weeyaan. qodobkaana intaasaa ka baxaya. beesha caalamku waa soo dhowaysay in soomaaliya ay hore u socoto. urur goboleedka igaad shalay warqaddii ka soo baxday dib u akhriya. ii sheega waxaa inagu qasbaaya inaynu dib u noqonno. waroy haddii dib loo noqdo soomaaliya cidina idinkagama xuma. waxaan leeyahay dalka doorasho way ka dhici kartaa. doorasho ha la aado. dawladdana waxaan leeyahay waa inay ku adkaysataa go'aankii ay ansixiyeen labada gole, madaxweynuhuna saxeexay. ninka kursigiisii ka shaki qabow dee waa yeelkadaa. ummadda dib u celin maysid. ninkii ka shaki qabow waxaa soo noqonaya farmaajo. war annagu ilaahay ma nihin. ilaahay baa og waxa soo noqonaya. ilaahay baa og cidda cod helaysa. ilaahay baa og. qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa. rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.